بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد waxaan rabnaa waxay ka nahay su'aasha khusaysa adoonsiga islaamka diinta islaamka maxay ka qabtaa adoonsiga miyaynu se ama haddii muslimiinta iyo xadaaradooda laga hadlayo miyaynu ku eedaysanahay ama muslimiintu taariikhan ay ku eedeyseen wax la yiraahdo adoonsi waxa runtii la yaab leh xadaarada muxuu ahay reer galbeedka qof dembiga ay gashay oo waliba dadkeena madmadow ay ka gashay ka ina qarsanaya malaayiin bani aadam oo afrikaana millions baa laga qaaday Afrika oo dabadeedna in badan ku dhinteen muxuu ahay al-muhiid al-atlas ku dhinteen intii gaadhay dhulka gaadhayna rafaad iyo silciga gaajo u dhamaadeen intii soo hadhayna lagu shaqaystay 2017 December waxa ka soo baxay United Nations qaraar ku sumadan 122 xariijin 62 oo ka dhigay 25 March maalin la yiraahdo al-yawm al-aalami lidhaaya muxuu ahaayay maalinkii yani caalamiga ahaa ee loogu tala galay lidhaaya raq is adoonsiga dadkii maartay ku dhibaatoobay qof waxa iska soo indhatiraya 400 sano bay socotay waxa la yiraahdo adoonsiga ama dadka la raray Afrika laga raray 400 sano 1600 1700 waxa 1500 1600 1700 iyo 1800 taqriiban afarta qarni bay socotay 1600 bay si xooga u bilaabantay waxa loo sameystay dadka maraakiib waaweyn Liverpool kaliya magaalada la yiraahdo England ku taala ayaa 107 markab ka soo bixi jireen 1600 markay ahayd 107 markab kaligeed ka soo bixi jireen oo Afrika lagu muxuu ahaayay dadka lagaga soo raro iska dhaaf Holland Ingiriiska intiisa kale Spain Portugal wadankan leer hadaan waan ka hadlay Denmark wadamada caanka ku ahaa in bani aadamka maxay inta guriyahooda loogu yimaado yaani waxay maaratay la waxaan aad u xasuustaa waxa la yiraahdaa 1680kii 1600 iyo muxuu ahaay 40kii ilaa 1680kii waxa laga qaaday Afrika 2,130,000 oo qof waliba waa markay bilowga ahayd weey ayaa laga qaaday Afrika laga qaaday dadka caynkaasi 10% waxay u dhinteen baa la yiri garaacid 10% marka waa imisa waa 200,000 qof wax ka badan way waxay u dhinteen garaacid sidii loo garaacay dadka laga qaaday malaayiinka ee doomaha inta lagu qaado muxuu ahaayay la dhaafinayay badweynta muxuu ahaayay atlas la dhaafinayay ma kala bar baa gaaray dhulka mise kala bar wax ka yar baa dhulka gaari jiray waa dood muxuu ahaayay dadka taariikhyahanada ay isku khilaafaan waxa la yiraahdaa 1700 40 milyan oo qof baa gaaray bariga gaaray talo markaa imisa ku dhimatay badda gudaheeda intii la sii waday oo sidii xoolihii la tuuray oo waxa way maaragtay imisa talo dhimatay waxa la oran karaa tirada ugu yar ka soo qaadno lahaano kala bar baa bariga gaaray waxaan oran karnaa markaa 80 milyan oo qofba Afrika laga xaalufiyo laga qaado dadka Afrika waxay isweydiin kartaa Asiaanku maxay u yiriin Afrikaanku u badan yihiin waa la ina xaalufiyay kala marka laga yaabo afar qarni bay socotay taqriiban maraakiibta intay xeebaha yimaadaan dadka sida xoolaha u ururinaya halkan waxaan ku hayaa kitaab la yiraahdo Hafaru al-Qubur al-Hadara allati tahfiru lil-insaniyati qabraha waxa iska la yiraahdo Roger Garudi waa nin Faransiis ah darajo sare ka gaaray hogaanka wadanka ilaa ma isu sharaxay madaxweynenimo marka daba waa islaamay baa la yiraahdaa waxaan kula talinayaa qof kasto oo buugga ay heli karaan akhriyo buugga waxaan soo iibsaday 2001 ahayd baan malaynayaa mar uu Sheekh Maxamed Qutb uu yimid jarmalka uu yimid مدينة آخر مقالة آخر لا يراهدو
halkaasuu muxaadaro ku lahaa jaamacad ku taalla halkan baan ka tagnay ragga hor fadhiyaa garanaya Abu Ubayd Abdullah Warsamaan wada soconay kutubtii la keenay buugaagtii la keenay baa kamid ahayd buugaagta oo qoray ninkan la yiraahdo Roger Garudi buugana waa kamid muxaakamada Sahyuuniyya al-Israa'iiliyya waa buug Faransiis ku qoray laakiin luqado badan loo tarjumay buugan wuxuu leeyahay xadaarada reer galbeedku waa xadaaro qodaysa xabaasha bani aadamka qodaysa marka nimanka dambiga inta leeg insaaniyada iyo bani aadamka ka galay illa ma hadday bani aadamka iyo insaaniyadii waxay ka sii galayaan dunuub aad u tiro badan buugaas wuxuu ku soo ururinayaa hadday tahay dhaqaale hadday tahay caafimaad hadday tahay dil toos ah oo xabad la isula tago hadday tahay sida reer galbeedku ay ummadaha kale bani aadam kale ay ula dhaqmaan hal tusaale hadan ka siiyo wuxuu leeyahay waxay ku faanayaan mareenku wuxuu dagaalka Ciraaq ka warramaya dagaalka Ciraaq hore weey waxay ku faanayaan buu yiri yatabahawna biilqaa'i alf tan min almutafajjirat fawqa Baghdad waxay ku faanayaan buu yiri 60,000 oo tan oo waxyaalaha qarxa ah inay Baghdad korkeeda ku dhufteen marka laga bilaabo maalintii koowaad ilaa maalinka afraad ma dagaalku socday oo dhan maalintii koowaad ilaa maalinka afraad waxay u dhigantaa buu yiri هذا يعادل 5 مرات ما ألقوه على هيروشيما ناكساكي وين نقانا وكي أتوم ممكن لغو دفتي شان غور باي كبدان تاهي وحي لغو دفتي هيروشيما ولا صعنا حصارك العراق 1 مليون او إلمو باكو دنتي سدا iyagu sheegeen 1 مليون oo ilmo iyagu waxay sheegeen xadaarada marka ay ka suurta gal tahay inay bani aadamka sida uu adoonsto qaaradaha ka kaxayso oo kuwii qaaradaha ku noolaa sida hindidii casaa oo kale dhamayso oo wixii soo haray lagu tijaabiyo dawooyinka ayaan dood bay Canada ka cudur daaranaysay halkan anu hadda aan joogo dood baa ka jirta caruurtii muxuu ahay lagu tijaabin jiray dawooyinka hadda dood cusub dad sidaas bakainaadka iyo basharka iyo bani aadamka kale u arka qof aan naqdinayn waxba aan ka sheegi karin taariikhaha madow cadaan ku leeyahay haddana laakiin islaam ku soo foogani waxaan maqli jiray war hashumaanka iyo gadaya ma masaar bay liqday qofku sidee cadaalad xataa haddaad wax naqdinayso waa inaad wax isu dheeli tirtaa haddana marka su'aasha u soo noqdo islaamka iyo adoonsiga iyo bani aadamka islaamku bani aadamku waa karaami wala qad karramna bani aadam nabiguna wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam la fadla li arabiyyin ala ajami arab iyo ajam kala fadli badna mid madow iyo mid caadi ma kala fadli badna halka falaasifada reer galbeedku ay dadka u ableeyaan inuu cadaanku ka sareeyo madowga ka sareeyo Immanuel Kant oo kale rag la midka ah waxay qabaan cadaanku inuu ka fiican yahay ninka madow iyo ka midabka kale leh kalarka islaamku marka dadka waa simay nabiguna alayhi salatu wasalaam waa dhaleeceeyay waxa la yiraahdo kala sareynta islaamku wuxuu leeyimi حل تدريجي أدون سجوا شري قبل الإسلام إسلام كنت أرى إمام بأدون سجوا شري ضدك الأدون سنة إسلام كم مركب وحول اسمه حل وحن لقط التراه كو وحل السمي ضدك وحل ميد باللقمة كلا دوانا إلا واجه رقفكم موضوع أدون بيسكاها ميد باللقمة كلا دوانا وحل حددي قفكم محو أدون كنا قنكرها أدون كنا قنكرها دي ليس دي ليو oo qoladaasina ay qoladan markay qabsato adoonsanayso kuwaasina adoonsanayaan iyadan loo eegaynin macdaan baa miswa madow saadarteed baa ninka qurayshiga ah ee carabka ah ee waxa weey maaragtay ee dagaalka soo gala hadii lagu qabto la iibinaya la adoonsanaya sidoo isagu bada wuxuu iibinaya wuxuu adoonsanaya dadkii marka waxa laga simay inaanu adoonsiga horta ku koobnaan karin qof gaar ah ama jinsi gaar ah ama nooc gaar ah ee wax ka dhashay dagaal iyo raadkii iyo saameyntii u yahay si marka loo yareeyo daa'irada adoonsiga marka labaad waxa qofkan la yiri waa adoon la siiyay xuquuqaad u tira badan oo qofkan la sayid baan aanu ka bixi karin waxa markaad wax cunayso si cunto oo dharka aad gashanayso u gali xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam oo wax aanay ka shaqeyn karin ku xambaarina maxaa ka faa'iideysa marka macnaheedu iska sii daawo diinta islaamku cibaadaad fara badan iyo waxyaalo badan baa waxa lagu xiray in dadka la xoreeyo oo qofku markuu dhaarto waxay kafaarada wada xoreyso hadduu wax dilo kafaaradu waa inuu xoreeyo
يعني أحكام بدن بقى واحد لو حري محي وحرينتي لو حري جنادي بقى لو حري فكر رغب أحيانا جناد لو قالوا بقى للقرن الحريسان بقى كم ده مرة دين الإسلام كوارك ميسي الدونس ولا أمانة يو أما محوها هاي لمحوها هاي ضدك لو ترترسين يو بالعكس سلو سوليو إسلامكم مركا وحو كياني حل مركا عملي هو الله تابن كراي نتيجة كرلتي مركا محي نقطي نتيجة كرلتي waxay noqotay inay soo baxaan dad la yiraahdo mawali halkii waaga hore abid ay jirtay adoom qabla al-islam ay soo bixin mawali mawalidu waa maxay waa dadkii marka la xoreeyay islaamku marka xoreeyay qofka xoreeya ayuu marka xiriir marka la yeelanaya iyo xuquuq iyo waxba ka dhalanaysa saas ba marka islaamku u dhaqmay إلا ما مركي دنبه يعني وحوي ماركتي أي ظاهرة داسي أي نقطة ظاهرة منقرضة تقريبا بالعكس كلباتكو تاريخنا أساسها إلا ما إيمان تانا أدون سوتشرا بلادوك بار حد بار لا أدون سجن محوها هاي معاصر كأم عصبي هذا الدنيا كتير dumarka la kala iibsanayo caruurta la kala iibsanayo bal xitaa waa la sharciyay adoptionka waxa la yiraahdo inaad ilmo yar Afrika soo iibsan karto halkan waa ka sharci ilmo yar inaad reer intaad u tagto aad Asia Afrika iyo waalidkood intaad lacag u tiriso ka soo iibsan karto sharci waa oo muxuu yahay tolo marka qof bani aadamka la kala iibsanaya ya bani aadamka la kala iibsanaya waa maxay qalbeed oo dhan sharci ka yahay taqriiban intaan ka warhayo in ilmahan la tabaniya uu yahay sharci inuu yahay carruurta la kala iibsado waalidkii marka ilma aan haysan indii tagayaa wadamada iyaga xiriirka la leeyahay Afrika halkan wadamada carruurta aadka looga soo iibsado Ethiopia kamida walo hadda waa dhawd buu ka dhacay islaamku ma qabaan carruurta la kala iibsado ma xaraam waa qof bani aadam lama iibin karo see loo iibin karo qof bani aadam Umar ibn Khattab baa laga sheegay inuu yiri radiyallahu anhu war goormaad dadka adoonsateen iyadoo hooyinkooda ay dhalaan iyagoo xara mata istabcadtum an-nas wa qad waladatum ummahatuhum ihraran islaamku dadka qiimo u yeelay illa ma hadda marka waxaan leenahay baqaayaadkii adoonsiga oo mid toos ah iyo mid aan toos ahayn baa jira mid sharciyeysan iyo mid aan sharciyeysnayn dadku marka waxay u baahan yihiin islaamka inuu soo noqdaan isaga qofka xaqiisa siinaya oo qof la iibinayo diidaya oo waalid ilmihiisa laga qaadayo diidaya ونوع من الأدونس إذا لفتيته والدك إن لا يرادوا غير المسؤول أنت وحول لو وصل دونته وبقاياتك تراثك أما نحلك أدونس جوا حكى حريم أنت ضدك ولي بأقلياتك مينورتي مساكين تعملها كل نول اللي يرادوا مسؤولية بكسر بحواية ويشرن قار مسؤولية بكسر بحواية لكن والدك إلمها لقى قاطع جدي مسؤولية كمسؤولية بحوايين لكن الثقافة عقل البادن كهالكن كتش توي سو ما تشديد waxa marka xaq lagu helaya xuquuqda lagu helaya waa islaamka ayuha naas islaamka u soo noqo saadarteed fuqahadeena xataa qaarkood waxay yiraahdaan waxa la adoonsan karaa xaaladda dagaalka xataa waa kan marka isagu wax adoonsanaya laakiin marka cidda la dagaalamaya ee naftaba qurgooyaduba ay naga dhaxayso hadii lagu heshiyo la yiraahdo war han adoonsanina anana ida adoonsamin waa la yeeli karaa بعض فقهاء المسلمين رأي قبام مركو من باب العقوبة نعم مركا لقى ياغو أدون سبوح بكو من باب العقوبة كان مركا انتو إلا دقال لمدة وحيقا أدون سنة بانا نكا أدون سنة وجزاء سيئة مثلها أكلوي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به أكلوي كردقنا نيسا ومن باب المعاملة بالمثل لكن اسكسوا دوبو إسلام مركا حل كاسو السماعي حل ظاهرة داس مركا لغو سولين أيو مركا إسلام كو سماعي قفكو حتى adoonka inta dagaal lagu soo qabtay haduu doonay inuu mukaatab noqdo maaragtay isxareeyo sharcigu wuxuu amrayaa in lagu kaalmeeyo oo la yiraahdo waa in lagu kaalmeeyaa oo wuxuu isku xoreyn lahaa marka maaragtay lagu saacidaa wana dhacday waqtigii nabigeena kaleey salaatu wa qisada hooyadan Aisha iyo Bariira iyo qisacana waay saadarteed islaamka sidaa uu iftiimaya ee daahirada suuliyay ee dadka simay ee kor u qaaday ee bilaal gaarsiiyay inuu فورو يعني منارة فورو منارة واقع ما تشين لكن معنويا منارة فورو قارسية إيه كأمين سن إنه نينكم مدو ناجر يهاي يعني وحوي ماركتي ضد كهوسية
oo dabadeedna 4 qarni doomo ku guranayay ilaa ma ay haddana khayraadkiisa guranaya يا سلوا سيم كريا لبضاس يعني وحوي تلك قسمة ذيزة يعني وميسان آديات أفقوية وأنا واحد حق لقول رادينين لقول رادينيو يعني وحوي ماركتي شبهه عن أساس إيو كتاجنين راد بدن كتاجنين هذا بالله تعالى توفيق جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.